هم منكم بربهم يشركون إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. waxaan u tacsiyeynayaa samsam habaryar ilaahay saqiir aakhiraha kaaga dhigo. maxamed maanta ku ekaa nolosha adduunka intuu ku noolaanayay, qalbiga allaha kuu qaboojiyo. ilaahay dhib buu soo maray, saqiirna waa ahaaye, ilaahay adigana qalbiga ha kuu qaboojiyo, samir iyo iimaan allah kaa siiyo. waa soo dhibtootay, ilaahay bedel khayr qaba, qalbigaaga deganaasho ilaahay ha kuu siiyo. gabadhaas dhowr sano bay maleeshiya joogtay, ilmigaas ku rafaadayay oo aada ugu dhibaneed. aad baa youtube-ka iyo tiktoktaba looga yaqaanaa. waa gabar social mediaha isticmaasha. maanta qof inta youtubera ee maleeshiya joogta qof u yimid hal gabaran ka arkayo oo ifraax la yidhaahdo. waxaan ogaaday maleeshiya dadka jooga, soomaalida dunida ku nool, soomaali dadka ugu xun inaan nahay horta inta maleeshiya ku nool, khaasatan dadka social mediaha isticmaala, inay yihiin dad aad qalbiyada uga daxalaystay. aad baan uga niyad xumaaday maanta waxa aan arkay. dadka soomaalida horta waxaan nahay dadka hadday wax yar helaan, moor ku shilin ay helaan, dhanka xumaantaan u bayrnaa. 2,000 markaan helno waa kasii dareynaa, 3,000 markaan helno waa kasii dareynaa. yacni dhaqaalaha maanta adiga aad social mediaha ka dhex raadinaysid in aad aad u xumaatid oo uu ciqdi kugu beero, aad bay u xun tahay. marka dadkaasna waxaan leeyahay ilaahay qalbiyadooda yaa wanaagga ha tuso, inay gabadhaa usoo tacsiyeeyaan, inay u yimaadaan, inay maantay xanuunka kala qayb qaataan. xitaa sakaraadka haddaada ugu imaan, maanta geeriyaa meesha taalay. geeridaas hadday kasoo qayb geli lahaayeen xitaa oo imaan lahaayeen, wax dhan bay ahaan lahayd. samir iyo iimaan allah ka siiyo, saqiir aakhira allah uga dhigo, qalbigana allah u qaboojiyo. samir iyo iimaan allah ka siiyo. maxamed yare waqtigiisu intaasuu ku ekaa, waqtigaagana waqti laguguma daraayo. haddaan qabrigii ka nimid, haddaan la soo aasay, hadda xilli dambey noo tahay 6 saaco habeenimo, 5 saaca ka nimid caawe. wadanaada lahayn waa dareen ku joog, waraaq hebelkeen, waraaq saan yeel aa lagu leeyahay. marka haddaan ka nimid, gabadhiina soo celina iyadoo qanacsan oo ujeeda wiilkeedu meeshii ilaahay u qoray oo qofna uusa ka baaqanayn, qof kastaa tagayo. godkii kusoo hubsanay, saqiir aakhira allah uga dhigo, ayadana ilaahay qalbiga ha u qaboojiyo, annagana gadaashiisa ilaahay nama fidneeyo.